furitaanka masaajidka Daarul Iimaan ee ku yaala xaafadda Jigjigeer ee magaalada Hargeysa waxaa ka qayb galay wasiirka diinta iyo waqaafta Soomaaliland, wasiirka xidhiidhka golayaasha arrimaha dastuurka, culimo u diin, ganacsato, qaybaha kala duwan ee bulshada. Ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay Sheekh Axmed Diid Cabdisalaan, maamulaha guud ee masaajidka Daarul Iimaan, wuxuu ka warramay marxaladii uu soo maray dhismaha masaajidka iyo bilowgii hore dhismaha noocu ahaa iyo sida loogu baahan yahay inay bulshada xaafadda Jigjigeer uga faa'iideysato cilmiga masaajidka ka bixi doona. Geesta kale wuxuu mahadnaqay maamulaha guud ee masaajidkaasi dadkii muxsiniinta ahaa ee ka qayb qaatay dhismaha. waxa uu soo maray marxalad isagoo jeengada oo daruurimeynaya oo iyadoo lagu cibaadaysanayo lagu tukanayo haddana roobka soo da'aya wax loo dhigayo. waa marxalad adag oo masaajidku soo maray oo muddo uu ku soo jiray sidii annagoo isugu duuban annaka iyo odayaasha iyo waxgaradka xaafaddu ayaa jumcadii ugu horreysay masjidkeennan aan khudbaddii kaga hadlay. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadiya hal maalin gudaheed in masaajidku 50% waxa weeyaan adduunkii lagu qiimeeyo ku soo ururay. falilaahi alxamdu walminna. Injineer Warfaa Maxamed Xaaji Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanka reer Soomaaliland oo ah mulkiilayaasha shirkadda Rayo ee qaab dhismeedka masaajidka samaysay ayaa isaguna ka warramay dadaalka iyo juhdiga ay geliyeen masaajidka iyagoo si tabaruca u sameeyay qaab dhismeedka masaajidka. inta fahansanayna way yartay waayo waxaad arkaysaa masaajido lacag aad u fara badan la geliyay oo haddana lacagtii la geliyay aanay ka muuqanin. ما شاء الله تاوح الناس حلي وحويا أننا عاد ووضع شقيني إنه مساجد ونقض مساجد عصرية وفقسنا شروطه لجهل لها مساجد نوعيسة وحلا الصو وحلا نشقديو وحلا غشقيو وحقوق على سن وحويا وبيت إلهي ومساجد كويا مساجد كنا ما هو حولي المركز لسيو وأي واحد ديزاين جرينيسا dhisme intaas oo dad ay isugu imanayaan oo lagu cibaadaysanayo oo haddana la doonayo inuu laha masaajidkan wuxuu socday muddo 2 sano wax yar la waxaana shirkadda Najah Construction ay juhdi iyo dadaal gelisay inuu noqdo mid ka mid ah masaajidada ugu quruxda badan ee ka dhisan caasimadda Soomaaliland. sida indhihiina ka muuqata ee idinku arkaysaan masaajidkan wuxuu ka mid yahay masaajidada haddana waa ka ugu horeeya ugu quruxda badan Soomaaliland dhammaan iyo caasimadda. masaajidku wuxuu leeyahay maktabad, wuxuu leeyahay qaybtii dumarka, wuxuu leeyahay meelo fara badan oo suuliyeeyo xamaameeyo meelihii lagu weysaysanayay baa masaajidkan muddadii uu socday waxaanu dadaal weyn gelinay inuu noqdo ka ugu quruxda badan ka ugu adag oo qaadi kara dhisme 8 dabaqa biraha ku jira iyo dhismaha ku jira way yar tahay magaalada wuxuu ku jiro. taana dadaalkeeda waxa lahaa gudida masaajidka oo dooratay inay wax tayo leh ilaahay ha barakeeyo dhisaan. geesta kale wasiirka wasaaradda diinta iyo waqaafta Soomaaliland Sheekh Khaliil Cabdillaahi Axmed ayaa tilmaamay sida ay bulshadu marka ay isku tashato ay wax u qabsan karto tanina ay ka mid tahay masaajidka Daarul Iimaan isku tashiga bulshada iyo sida loogu baahan yahay in dadku ay isbarbar taagaan loogana faa'iideysto cilmiga iyo daryeelka masaajidka. والله المساجد كان حنكفلنا وكرتينا المساجد كلها إلى دليلتين قاعدة مقطعان اللي يردين ومدينا أي كسو هاي دوان تبت توصل إيوه مستقبل عروضها يرنا إنجو شوكته كل بس ما تيجي هاي أي مستقبل كأنه غنيا بكربت كأنه كنت دايله أو أي نحوها هاي سكاشنو حكومة يبلشوا ينوع كسائر بشيرة هاي أما محق بشير رئيسك هذا تقدر عصرتها هذا قويهنك علماء إيانا مان محاكو هذا عدك صدمت بشير هيسا إيه سكال ميسانو سيارو لنيتين وقد بدلنوه وحي ما تكسو
wasiirka xidhiidhka golayaasha iyo arrimaha dastuurka somalilan maxamed xaaji aadan ayaa aad uga mahad celiyey sida ay dadka bulshada xaafadda jigjigeer isku tashadeen ay u dhiseen dhismaha masaajidka 3 dabaqa kooban iyo kaalinta ay ku leeyihiin ganacsatada iyo tujaarta somalilan geesta kale wasiirka diinta iyo awqaafta somalilan wuxuu xadhigga ka jaray maktabadda masaajidka oo ah maktabadda ugu weyn ee uu masaajidka loo bineeyey wuxuuna tilmaamay inay yaalaan kutub kala duwan oo cilmiya oo loo baahan yahay inay bulshadu ka faa'iidaysato xasan faarax qamaan telefishinka qaranka somalilan hargeysa waxa weeyaan sidoo uu wanaagsan yahay waana wax ilaahay amray oo aan garanaysaan oo ilaahay subxaanahu wa tacaala wax walba uu isu kaashado inaan waxa weeyaan kitaabka ilaahay u khidmayno oo ummadda aan ugu khidmayno oo aan u adeegno taana waxa weeyaan madaxweyne ugu hogaamiyay maanta waa joogaa iyo wasiir waxaan leeyahay ka faa'iidaysano